waxaan ku bilaabaynaa boosaaso oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ugu yaraan 6 qof ayaa la leeyahay waa ku dhimatay 5 kalena waa ku dhaawacmeen ama 7 kale warar kala soo baxay halkaasi dagaal saaka ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dagaalka ayaa waxa u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan maamul goboleedka Puntland wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkan waxa goor dhaweed Boosaaso nooga soo diray wariye Maxamed Xasan Dhalo dagaalkani wuxuu saaka 10kii subaxnimo ka bilowday xaafadda Ridwaan halkaas oo ay ku taal xerada ciidamada BSF waa aaga dekada magaalada Boosaaso halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay isku horfadhiyeen ciidamada BSF iyo ciidamada daraawiishta Puntland oo uu dagaalkani maanta ku dhexmaray gudaha magaalada Boosaaso waxa uu dagaal ku saameeyay xaafadaha kala duwan ee magaalada waxaana laga barakacay qaar ka mid ah magaalada oo u badan dhanka xaafadda Ridwaan ee bariga magaalada oo dadkii degnaa oo boqolaal gaaraya ay ka barakaceen iyadoo qaarkood ay u baxeen banaanka magaalada waxa isxireen markii rasaastani ay bilaabatay ganacsigii magaalada oo dagaalku saameyn ku yeeshay labada dhinac midkoodna kama uu hadlin khasaaraha rasmiga ah midna ma uusan sheegan lib uu ka gaaray dagaalkaasi laakiin waxa la maqlayaa rasaas teel ah oo mararka qaar dhacaysa markii xogaa la joogaba rasaas ayaa waxa ay ka dhacaysaa xaafadaha kala duwan ee magaalada isbitaalada magaalada oo ilaa 3 ka mid ah tagay waxa la keenay dhaawac kala duwan oo u badan dad rayida dhinaca kale duqa magaalada Boosaaso ayaa dagaalka markii uu bilaabay maanta wuxuu la hadlay warbaahinta waxaana uu eedeeyay ciidamada BSF waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobiyaal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxa ka mas'uul ah kooxda amardiidka oo hormoodka u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wada inay tahay kooxaha la soo abaabulay amardiidka ah BBC-du ma cadeyn karto sheegashada iyo eedaha uu duqa Boosaaso jeedinayo balse xiriir ayaanu la sameynay Maxamed Cusmaan Diyaano oo isagu diiday xilka qaadista madaxweynaha Puntland wuxuu si kooban qoraal ah noogu yiri oo noogu soo diray waxaanu ku jirnaa dagaal iyo istifaac dalkan waxaanu la dagaalanay buu cadow mana doonayno inuu isticmaalo hubka ciidankeena la soo khalday sida aad ka maqlaysay warbixinta Maxamed Xasan Dhalo dad badan ayaa maanta hadaba magaaladaasi ka qaxay kuwaasi oo dagaalku saameeyay qaar ka mid ah dadkaasi ayaa BBC la hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu ayaan Jaamac Ismaaciil waxaan joogaa xaafadda dekada Boosaaso Suweyto meherad baan ku haystay dib 3 bilood baan nagu socday saakana nala kulantay wixii aan hanti lahayn iyo wixii aan maxaan ku raday anagu qabo baan ka soo baxnay haddana waxaan joognaa maxaan ku qax baan nahay waxaan joognaa xaluk Ismaaciil joognaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Xaawo Cumar Maxamuud magaalada Boosaaso ayaan waxa ku imi safar kaga imi xagga rafka sanaag ah dabeetana waxaan u imi inaan danaysto oo magaaladan ka danaysto aniga waxaan joogay muddo 2 bari ah saaka markaan suuqa u baxay aan ku talagalay in hawlahayga soo gutana waxaan la kulanay xaabad iyo boroboleyn iyo buuq baan la kulanay haddana waxaan nahay dadka qaxa haddii aynu hadaba dib u eegno sida dagaalkani ku yimid ama sababtoo ahayd waxaynu ognahay in 24 November madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani uu xilka ka qaaday taliyaha ciidamada BSF Maxamuud Cusmaan Diyaano Dani ayaa isla maalintaasi waxa uu taliyaha cusub u magacaabay Amiin Cabdulaahi Xaaji Khayr ciidamada BSF iyo taliyahooda Maxamuud Cusmaan Diyaano waxay ka soo horjeesteen xilka qaadistaasi